xildhibaan Idriis Muuse Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle oo maanta si gaar ah ugu waramayay telefishinka Sahan ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda guud ee gobolka Buuhoodle iyo sidoo kale waxyaabaha ay qabteen muddada halka sano ah ay joogeen golaha deegaanka degmada Buuhoodle kuwaas ay garwadeen u tahay Khadiija Axmed Aadan Cali maayirka golaha deegaanka degmada Buuhoodle waxaanu carabka ku dhuftay amniga iyo isdhexgalka bulshada walaalaha ah ee wada degta deegaanada gobolka Buuhoodle kaasi ay waqti badan geliyeen sidii ay nabad uga wada dhexdhalin lahaayeen waxaana ka mid ah hadaladiisii deegaanka waa deegaan nabdoon xasiloon horumarku ka socdo oo deegaan aan oran karo markii hore hadii gole deegaanadii hore loo eego xitaa iyo maamuladii hore ka jiray intii imika sanadkan aan joognay horumar baaxad leh nabad deegaanka iyo isdhexgalay wallahi kulay horumarka sanadkan markaan u eego sanadadii hore aad buu uga wanaagsan yahay sanadadii hore waa nabdoon yahay Buuhoodle marka la eego waa 4 degmo afartii degmo anagu waxaan nahay golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle maayirka iyo maayir ku xigeenka iyo xoghayuhuba waa kuwii Buuhoodle waxaan ka qabanay waxyaabo badan waxa kamid ah waxbarashadii waxa kamid ah caafimaadkii waxa kamid ah isdhexgalkii bulshada waxa kamid ah nabadgelyadii oo ahaydba targetka koobaad ee aan markii hore ku shaqeynayna markii ugu horeysay ee la doortay ta koobaad ee aan waxaan awood saarnay waxay ahayd nabadgelyada waayo meesha hadaan nabadgelyo ka jirin laga ma shaqeyn karaba marka ta koobaad waxa koobaad ee imika aan oran karo waan ka shaqeynay meel wanaagsan oo inoo maraysa nabadgelyadii kuwa kale ku xiga caafimaadkii waxbarashadii wixii ba iyagana mid kasta wax laga qabto waxa sababtay in aanu degmada Woodward si ku meel gaar ah ugu shaqeyno anagoo golihii deegaanka amniga sababay markii hore waayo labada degmo markaad soo agtay imika Woodward iyo Buuhoodle Woodward waa la isku halayn karaa waa meel amniya waa meel nabdoon waa meel xasiloon waa lagu shaqeyn karaa waniga ku sheegay waxa ugu horeeyay ka howlgalnay waxa ay amniga degmada sanadkaaba imikeedaan ku shaqeynaynay waad ka warhaysaa wax qabada laga qabtay gurigii degmada laga hirgeliyay waxyaabo badan oo ay Woodward u baahnayd ayaa laga qabtay waxana sababay taa gole ahaan kalfadhi baan ku ansixinay in Woodward lagu shaqeeyo si ku meel gaar ah lagu shaqeeyo laakiin si ku meel gaar ah imka anagu gole ahaan waxaan lagu shaqeynaa Woodward halkaasaan wixii horumar ee deegaanka laga qaban lahaa aan ka wadnaa xildhibaan Idriis Muuse Xaaji Aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu maayirka golaha deegaanka degmada Buuhoodle Marwa Khadiija Axmed Aadan uu ku sifeeyay isla markaana ku amaanay sida wanaagsan ay u hogaaminayso golaha deegaanka degmada Buuhoodle isla markaana wuxuu ku bogaadiyay waxqabadka ballaadhan ay ka fuliyeen golaha deegaanka degmada Buuhoodle waxaanu iftiimiyay inaanu jirin khilaaf u dhaxeeya maayirka iyo golaha deegaanka degmada Buuhoodle isagoona ka digay in laga been sheego waxqabadka ay ka fuliyeen muddadii ay joogeen golaha deegaanka degmada Buuhoodle waa maayirka quriya ee dumar ah ee golayaashii deegaanka 23 degmo golayaashii deegaanka 23 degmo ka soo baxay waa maayirka quriya ee imika jira ee haween ah horta nasiib bay leedahay aad buu nasiib badan tahay ina markii hore doorasho soo gashay oo ku soo baxday mar labaadkana doorasho kala sii gashay oo ay maayir ku noqotay horta in la isdhaliilaa anu dhowr jeer hore waan dhaliilay in la isdhaliilo waa sunna dawladeed bayadu oo qofkii in wax qabadkiisii isagoo wax qabtay baad dhaliili kartaa hadana waxa laakiin ceeba in qofkii wax qabadkiisii aad sheegi weydo wax qabad way qabatay sanadkii inta sanad bay joogtay imka marka loo eego maayaradii hore ee degmada Buuhoodle waad garanaysaa sanadkii u dambeeyay waxa laga yaabaa 6 bilood ee u dambeeyay 5 waxa laga yaabaa 7 sano ku imka aanu bedelay waxa joogeen ilaa 8 sano joogeen 8 sano marka loo eego sanadka quriya ee aanu joognay waxa laga yaabaa in sanadkan wax qabad badan 7 sano ay joogeen waxa laga yaabaa in sanad quriya wax qabad badan qofka lama qariyo libtiisa way shaqaysay wax way qabatay go'aan bay leedahay iyadoo oo aanu 10ka kaleba aanu ragnahay ayaa majority-gu hadana dhaliilay wax qabadkeedu u muuqda qofkan wax qabadkiisa la sheego way taa lama oranayo haddii qofka dhaliishay maxaad wax qabadkiisa u sheegtay waa ceebtaas iyadoo oo dumara in aanu ahno wax qabad maad qaban markii hore aan lagu dhaliilnay imkana la yahay wax qabadkeedii maxaa u sheegaysaa waa qalad waxay qabatay annaga qabanay
waayo waa maayarka annagaa dooranay annagu maayar noo yahay golihii deegaanka hore wixii ay qabteen ayaa ku calaamadsan kan iminka ama maayarku ha qabto ama cid kale ha qabato annagaa ku calaamadsan war wixii maayarku qabtay waa sheegaynaa waayo waa waxqabadka quraya aan la shirtagayna haddii muddadaas sanadkaa wixii ay qabteen anu waa qararaynaa war qararmayna annagaa la shirtagayna horta khilaaf ma jiro dhaliishu dadku dhaliishay u yaqaanaan khilaaf haddii iminka aan ku dhaliilo isma golaha khilaafka ma jiro dhaliil baa jirtay dhaliishina maayarkii wuxuu yidhi waan isi saxayaa dee haddii uu yidhi waan isi saxayaa oo aynu nidhaahno isi sixiina waa kaala dagaalamayna taasa khalad gabagabadiina xildhibaan Idris Muuse Xaaji Aadan ayaa waxa uu fariin u diray maamulka Puntland oo uu ku eedeeyay inay faragelin ku hayaan bulshada walaalaha ee deegaanadaasi gobolka Buuhoodle wada degtaa waxaanu yidhi dee Puntland waxaan oran karaa dhalinyarada ay u soo magacawday ayuunbaa isla imika dadka isbara waayo deegaanka marka dee xagga imika Somaliland horumarka ka socda nabadda ka jirta xasiloonida dhaqaaqa waxaa marka la arko ninka weyni dee horumarku inuu isna dhinaciisa ka qaato dhinacu daraba ka soo jeedo fariinta aan u dirayaa waxay tahay war horumarka aynu ka shaqeyno waxba tari mayso dagaal ahurisaan waxba tari mayso cid ay isku digtaan waxba tari mayso shaqaaqooyin deegaanka ka dhaca deegaankeenu wuu horumarayaa aynu deegaanka horumarsano ayaan leeyahay dhalinyarada yaryar ee ay Puntland soo dirayso Puntland waxba idima hayso waa aragtaan waa ka warhaysaan ayaan liciga Ducaali Bukhari wararka telefishinka Sahan Burco.